بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxa ka hadlaya Sultan Abdulatif Maxamed Nuur Qorbaxay ka furfuro waxa maanta igu soo gaaray maxay haytay inaan saxaafada la hadlo waanu yaabnay xalay waa la yaabay gudoomiyaha xisbiga kulmiye wixii la ogaayay gudaha uu galay madaxweynaha Axmed Maxamed Siilaayo xalayta wuxuu ka dhawaajiyay hadal aan loo fadhiin أولي مدحوينه قرنك وسري يدو في ستيت كدلك وسري أيان محكمة تاقية موسى وحان الله هذا الكاتري أفكا كما أظن ميل كلات كتري إن بدن بالغو كولي والله قاعدة دقي وأحمد سيلاي وقدو مفر بدن كوغلي مدن مدحويني dadkaagi iyo qori xaraamihii Soomaaliland ay lahayd iyo siyaasi iyo rugcadaagi wartaad ka wada goysay kii aad uga goysay saaka wuxuu ku leeyahay maxkamadda ayaan ku taagaya adigoo ah hogaamiyihii dalka ugu sareeyay iyo taliyihii guud ee ciidan badan waxaanu leenahay nama qabato arrinkaasi nama qabto haddaa ka gilgilan weydeen حكومة هان يا كابينة هان يا سومالان هان بلهان بالوجا جلجلنا مراقبة إنه منير إنه مصبيحي هذا الكومنت تاجي وحوي لا شيء دي قال ما لا ينجير على يسي مركو أركي سياسة ديسي إن يفشل لقطي أو محيا هيتوي لقيت قول يسريه أو أركي حالة ديسي إن ما أنت هيسو قاعد يقرقر حق أبو يرسينه يهاي يسقي يحس بقيسي بقى أيوة ما أنت وحكون واقعين يا مدحوين دلك وسري وحن سو تاجي يا محكمة وحن لنا unless improvement دنبي خوف كاستوى بلا دنبي إلا دنبي كو عضاضو أحمد سيلاي وإنوسنتي بلا دنبي وي دنبي كليه وقال وحي هاي قربيال كوكو قربيالي حق دردي أكو قادتي قدومي نمدي حسبك إيا مشرحي حسبك إبنتها حياة قادتي مدحوينها Somaliland waxaan u jeedinayna oo aanu maxay haytay baaq dheer ugu dirayna si degdeg ah xisbiga talada haya ee kulmiye degdeg ha u fariisto impeachment degdegna ha lagu qaado ninka maanta taagan madaxweynaha dalka u sareeyay ee waxa soo tacaba iyo waxa soo hormaray iyo waxa soo halgana u soo galay maxkamadda soo taagaya Somaliland oo dhan iyo xisbiyadii dalka ee mucaaradka ahaa yaa maanta ay taagan yihiin war dadkeenii oo baabaayo oo bakteeyo oo rugmanaya doorasho lama qaban karo history repeat itself taariikhdayada ay soo celisa waxaanu leenahay muuse dhashaydii geelman layne giiralaysay ayaa taagan tahay maanta markaad aragtay in laga adkaaday ayaad madaxweynihii dalka u sareeyay ee xilka banaynayay isku soo qaaday waxaanu kala leenahay madaxweynaha dhalaankii ku ogol yaa dhabta lagu sitaa dhalaankii ku ogol yaa dhabta lagu sitaa muuse waa diiday in la sido muuse wuu diiday in la sido كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى موسى وإسك ديدي إنه نقدم مدحوينها شناد Somaliland وبالله توفيق وين الداي موسى وين الداي مع السلامة